نما صاحبنا هاي ورجع أقول عكتة بدنا السعودية العربية لا بقول لك كنت سوبر ماركت ولا بات يوتيوب كي كشرتها هو حيري جريد 4 مركان هابير با معلك وحي يري بير واديga waxbarasho kuma fiicnaa naga tag oo iska tagay bir abiis wala shaqeyn jiray dukaan yar buu furtay asagoo taagan yahay dukaan yar oo wixii loo keenay oo ku gadgad adig aad yar maanta 250 supermarket buu leeyahay Sacuudiga dhexdiisa marka macallinkaas waa u shaqeeyay ninkaas u shaqeeyay real estate ka leeyahayna $10 billion wax ka badan asaga waxa ku leeyahay grade 4 baan uga tajriinta adduunka oo dhan waa saas waa ka dhaca tacliinta marka waxa kale ma aha hadii kan tacliinta la oo shaqeyn lahaa saas u shaqeeyay waa ka fiicnaan lahaa markaas aqoon buu leeyahay laakiin si qaashada shaqo kala jirto oo jarmalku ay soo saareen nimanka farmashuutika ka shaqeeya dawooyin ka shaqeeya secret badan bay hayaan shirkadii secret badan bay ka shaqeeyaan marka secret buu hayaan marka meel kale oo ka shaqo fiican buu helaya marka waxay sameeyaan qofka ay jecel yihiin waxay siiyaan mushaar aad u yar oo san waxba ka dhigan kareen laakiin waxay dajiyaan magaalada compoundiga ugu fiican iskuulka ugu fiicanna waa ka bixiyaan gaariga ugu fiicanna waa siiyaan asaga naagtiisa gaariga ugu fiican bay siiyaan marka dumarku waxay noloshaas quruxda badan bay hayaan hadii ninkii wax kale keenaya meeshaan meel kaliya taan u dagayna war meeshaan meel ka fiican adduunka ma joogo marka xabsigaas bisaga jira qofka aqoonta lahaa ma gudbay marka saasay sameeyaan warshadaha shirkadaha waaweyn si qofku haystaan baabuur qaaliya guri qaaliya caruurtii ma ogola xaaskii ma ogola guri qaaliya ku noosha guri magaalada ugu fiicnaa gaariga ugu fiicnaa bay wadataa ciyaalka iskuulka ugu fiican bay dhigtaa ayuu kama fakarayaan waqti wax dhiga shay talada keligii malaha markaa caruurta iyo reerkii ay jooga shaqada saas u isaga dhimanaya ilaa meesha ka gaar marka laakiin ninka kan aan aqoonta lahayn waxa ku khasbay noloshiibu soo saar marka in badan waa soo baxaysa oo kamid ayaga ganacsiga waxaad gaartay markaad gooni u taagtay inaad ka mid noqoto bahashan shirkadda weyn kugu xiran calaamadan bal ii fasir 2009kii baan waxaan sameynay jaamacadda dowladda carabta waxay leeyihiin laba qaybood qayb waa qaybta siyaasiga oo la yaqaan qaybna waxa la yiraahdaa Arab Economic Unity الوحدة الاقتصادية العربية وقيبتها dhaqaalaha labadaas waxay leeyihiin laba waxay leeyihiin manager oo siman bay leeyihiin laba secretary general oo jaamacadda carabta qaybta dhaqaalaha marka qaybta dhaqaalaha aad looma yaqaan maba ka warqabnaba siyaasadda laga warqaba qaybta dhaqaalaha marka waxay leedahay markaas 2009 49 ururka carabta oo maxaa la yiraahdaa caafimaadka ururka carabta oo noocaas adigu 49 urur oo kala duwan bay leedahay xataa ururka dumarka ku jira ururka shamiitada ku jira ururka nooca ku jira anagu marka 2009 waxaan sameynay ururka carabta oo real estate Arab Union for Real Estate Development dabcan assetka ugu badan oo adduunka waa real estate runtii waxa isku yimid marka 209 qof oo 17 dal carab ah ka socota maadaama aan cusbayn waxaanu raadinay yaanu la cooperate karayna laba shirkadood baan laba hay'adood baan kala dooranay hay'ad waxa la yiraahdaa FIAPSI oo tan weeye FIAPSI waa Faransiis Paris bay degan yihiin waxa la laakiin marka Ingiriis loo bedelo waa International Real Estate Federation waa ururada oo real estate-ka markaas 70 dal baa ku jirtay 2 milyan oo memberna waa lahayd hadda 78 dowladood 3 milyan oo member bay leedahay urur kale waxa la yiraahdaa Barcelona Meeting Point iyaguna waa urur saddexda urur ugu waaweyn oo sameeya real estate exhibition-ka bay degan waa reer Barcelona marka labadaas aan la itixaad la sameynay taxaaluf la sameynay marka qolatan sanadkiiba meel bay ku dhigtaa exhibition waxa ka soo qabay ilaa 5,000 oo qof oo who is who in the real estate marka jaamacadda carabta gudaheeda lagu dhigo caalamka oo dhan caalamka oo dhan baa jaamacadda carabta laga dhigo annaga member ka ah marka waxa lagu dhigaa dunka dhan baa lagu dhigaa anagu waxa ka qayb galnay mar lagu dhigay Leningrad magaalada la jiray Malaysia Qobrus meelo fara badan hadda meel baa lagu dhigaa ilaa Spain
hadba qofka markaas madaxda laga dhigayo sanadkii madaxweynaha mar baa la bedelaa every year madaxweyne cusub baa la doortaa marka meesha lagu dhigay hadda la tagaa marka taas marka waa ururkaas weeye kan kale Barcelona meeting point baa la yiraahdaa sanadkiiba October buu wuxuu dhigaa exhibition ayadana waxay isku timaadaa ilaa 20,000 qof baa isku timaada iyo hay'adaha shirkadaha ugu waaweyn adduunka iyagana member baan ka dhowr jeer baan ka qayb galay marka waa ururkaas weeye